Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryeynta Soomaaliyeed ayaa maanta ku wareejiyay gaari bas ah kooxda kubadda cagta Genyo taa oo ka dhashay horyaalka Soomaaliya Premier League. Naadiga Genyo ayaa la aasaasay sanadii 1968 waana mid ka mid ah kooxaha ugu taageerayaasha badan horyaalka Soomaaliya Premier League. Kooxda kubadda cagta Genyo ayaa ka mid noqotay kooxaha iminka sida tooska u leh gaariga loogu talagalay ciyaartoyda in lagu qaado markay leeyihiin kulan tii ay jirteen kooxaha qaar ee iminka haystaan. Genyo ayaa maanta lagu wareejiyay gaari ku qoran magaceeda LLPP Genyo. goobta lagu bixinay gaariga waxaa goobjoog ka ahaa maamulka wasaaradda oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta, agaasimaha wasaaradda, maamulka kooxda Genyo, ciyaartoyda kooxda iyo taageerayaasha naadiga LLPP Genyo. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha kooxda Genyo isagoona carab ku dhuftay in Genyo ay ka baxday agoonnimadii. macalinka kooxda LLPP Genyo, ciyaartoyda, taageerayaasha, maamulka kale intaba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waqtiga oo aad noogu cariiriya waxaan rabaa inaan adag soo koobo. waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan wasaaradda Howlaha Guud oo wasiirku u horeeyo oo aan iraado mahadsantihiin garab istaagteen kooxda muddo ayay jirtay intaasna way sugaysay maanta haddaan noo yeerteen alxamdulillah. waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin. Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan. maanta waxaan u joogno waa wax aad loo wada yaqaano waaye sida loo sheegay gaarigii baska ahaa ee kooxda wasaaradda Howlaha Guud lahayd ayaan rabnaa in la wareegno wixii ka dambeeyayna qorsho isdaba joog ah oo ugu horeeya maamul iyo budget iyo inta waa ka wada hadlna wasaaradda waana soo dhaweynaynaa insha Allah. ciyaartoydana waxaan leenahay waxa ku qanacaysaan wasiirkeenooda hor fadhiya iyo madaxdii kale hor fadhisa in hortiin laga ballan qaadi doono wixii oo xaq ama xuquuq ah leedin halkaas ayaan ka heli doonaa insha Allah. sidoo kale waxaa goobta hadal jeedin ka sameeyay macalinka koowaad ee kooxda LLPP Genyo Axmed Taliil ka oo sheegay inuu ku faraxsan yahay in garab istaag weyn ay ka helaan wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta. fudud maadaama aan hore u sheegnay inaan dad agoona kadibna ay noo soo bandhigeen inaysan ahayn dad agoona oo leh adeer, aabe, waalid, hooyo wax walba inaan leenahay. intaas idil waxay nagu sameeyeen wax kale ma ahayn inaan jiilkeena ka harin maadaama kooxda ay dheelada horyaalka heerka koowaad diyaarna u yihiin sanadaha soo socday sanadaha kaleetaba inay kooxda taakuleeyaan. runtii wasiir waxaan leenahay waa mahadsan tahay sida quruxda badan leh qiimaha leh ragga kooxaha naga qiimo badan maanta basas haysan inay maanta kooxda LLPP Genyo bas yeelato xafiis ay yeelato inay yeelato baalki garoon intaas baxay ahayd waxaan rajaynaynay adigaana suurto galiyay waxaan ku faraxsanahay in maanta aan nasiib u yeelano wasiir adigoo kale inuu kooxdan garab istaago. sidoo kale agaasimahan waxaan leenahay maadaama shaqada dhinacaaga ka qabatay waxaa tahay aabihii labaad ee kooxda waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol. dhanka kalena waxaa goobta ka hadlay madaxa farsamada ahna taageeraha weyn Maxamed Faras kaas oo aad ugu farxay in kooxda Genyo la guddoonsiiyay gaari gooni u ah kooxdani. gabdhaha taageerayaasha kooxda iyo wiilasha kulligiin waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. war badan maanta farxad aan la hadli karin oo dadaal badan oo meeshan iyo jadwal bal aan ku bixiyay maanta waa guuleysanay. kooxdeena macalinka astaan markay wareysatay agoon waayo wiri agoonnimadii inaan ka baxnay taas ayaa caddeena wasiirkeena khayr Allah siiyay waan soo garab istaagay. maanta oo kale ma jirto wasiir waxa ka codsanaa kooxdan waa leega bilaqaystay ciyaartoy fiican oo tayo leh gudoomiye kooxeed oo kooxaha dalka ka dhisan ay ga bilaqaysteen. waxa ka codsanaa ciyaartoyda tayada lahayd oo kooxdan oo Anwar ugu weyn yahay oo Yemen ka keenay oo nagala qaatay inaan noo soo celisid. marka wasiirka ugu fadhinaa inuu ciyaartoydeena oo tayada lahayd oo Jarnaad Daawudka horyaalka dagaalami jirtay qaranka Soomaaliya 10 nin ku lahaa jirnay maantana hal nin kuma lihin. ugu dambeyn hadalka waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Soomaaliyeed Mudane Maxamed Soomaali ka oo sheegay in uu ku faraxsan yahay ka wasaarad ahaan in dib loo nooleeyo awoodii kooxda LLPP Genyo iyo niyad-dhiski iyo in ay kooxdan ay garab istaagi doonaan ka wasaarad ahaan. kooxda LLPP Genyo leedahay kooxda waqti badan ay soo jirtay dib u yegleelideedii iyo waagii horeba weligiina wasaaradda ka tirsaneedeen kooxda wasaaradda ay ka tirsan tahay xafiis ay halkan ku leedahay maanta oo gaariga aan u fadhino maalmo ka hor waa ogeedeen xafladii dhiirigelinta ahayd markii heerka labaad u dirteen koox fac weyn oo 20kii saneed dambe ahayd kooxaha ugu waaweyn dalka
oo aan dhammaanteen ka soo wada qayb galnay maalinkaasna shirkado oo aan marka hore aan u mahadceliyo sidoo kale shirkadda Best Sports oo idin soo waday maantana idin garab taagan iyo shirkado kale oo dhismo ah kambaniyo dhismo oo ayagana idin garab taagnaan doono wixii maalinkaas ka dambeeyay ilaa maanta oo darays idin siiyey idin ka qayb qaatay xafladiina ka qayb qaatay ilaa maantana garab idin ah iyo gaashaan ka wasaarad ahaan wasaaradda ka tirsantihiin oo xafiis ku leedihiin annagana wasaaraddu lafteeda kabasho ku jirto xilli kabashay ku jirtaa wixii karaankeenna ah tabarteenna ah maadaama ay wasaaradda ka tirsantihiin xuquuq ku leedihiin horena waa uga shaqaynaynay wixii maanta ka bilowdana waa ka shaqaynaynaa si kastaba haatee kooxda kubadda cagta Genyo ayaa ka mid noqotay kooxaha markaan haysta gabaarida gaar ku ah kuwaas ay ku tagi karaan garoomada markay ciyaar ay leeyihiin Cabdi Rashid Abu Karnaani Gol FM Muqdisho